shan wax oo xilliga dhalinyarnimada aynu samayno balse hadhow aanu ka qowmamayno. haddii aad kunta jir ka weyn tahay naga raali ahow, keliya barnaamijka daawado ka noqo, laakiinse barnaamijkan wuxuu si gaara u khuseeyaa dhalinyaro. intaynaan barnaamijkan u gudagelin waxaan kaa codsanayaa haddii aad nagu cusub tahay inaad like iyo follow inoo tiro page-keena, inaad subscribe tiro kanaalkeennan, barnaamijkana aad like garayso, sidoo kalena aad share garayso oo la wadaagto saaxiibo badan oo runtii muhiim u tahay. share garay saaxiib, maalin walba baan kuu sheegaa salli calee. maanta isxilqaan, baryahan ba isxilqaan baan hawsha ku wadnay. xilliga dhalinyarnimadu waa waqtigan aad u jecel nahay inaan la soconno oo aynu qayb ka noqono fashionka, styleka caalamka ka socda, inaynu qaadano gawaadhidii ugu dambeeyey, moobiladii ugu casrisan ee la soo saaray marba marka ka dambeysay, iPhone 12 Pro Max, iPhone 11 Pro Max, iyo iPhone 13 Pro Max, iyo iPhone 14 Pro Max oo soo bixi doona, oo in dhammaanteen jecelnahay haddii lacag haynana aynu ku bixin lahayn si aynu usoo iibsano. balse taasna ay keenayso in mar walba aynu ahaano xilliga dhalinyarnimada inaan waxaynu helno markiiba aynu gubno. haddii maanta aynu soo galo $500 aynaan meelba waxba ka dhigin, aynaan wax micno oo badan aynaan ku save garaynin, balse markiiba waxyaabo iska stayla, waxyaabo iska doonisa, hebelba u qaatay qaado, hebelba uu soo iibsaday iibso, hebelba uu sameeyey samee, lamida ayaynu lacagteena ku lubinaa. taladan markaa waxayna leedahay intaad dhalinyarta tahay, intaad wax save garayn karto, intaad wax dhigaal aad meel ku hubsan karto ku hubso. haddii aad shaqaale tahay oo aad ku shaqayso $400, isku day calaqal inaad $50 aad bil kasta meel iska dhigto oo ka baxsan waxyaabihii qarashaadka ahaa ee shakhsiyan aad u baahnayd. waa inaad sidoo kale samayso waxyaabahan muhiimka ku ahayn inaadan marnaba dondoonin. waxyaabahan muhiimka ku ahayn waa inaad isweydiiso waxaan muxuu aniga igu soo kordhinayaa, muxuu faa'iido aniga ii leeyahay, balse laakiin aanad isweydiin waa wixii ugu dambeeyey, waa style, waa fashion, waa aanad laakiin garanin exactly muhiimadda uu sheegana ku leeyahay. taana mar walba waa inaad aada uga fiirsato. xilliga dhalinyarnimadu waa waqtigan aaminsannahay markaan jaamacad dhamayno inay intaas waxbarasho iyo aqoonba inagaga eg tahay. jaamacad waad ka baxday oo 12 sannadood ayaad soo baranaysay, balse aqoontu intaa kuma eka. aqoontu barbilow ay leedahay, balse bardhamaad marnaba ma leh. haddii 80% ka mid ah ardayda jaamacadaha ka baxday aad weydiiso goorma ayaa kugu dambeysay inaad wax akhrido, badidoodu waxay kuu sheegayaan oo ay ku oranayaan maalintii ugu dambeysay aan buugga difaacanaya ama buugga soo jeedinaya jaamacadda ayaa ugu dambeysay wixii ka horreeyay, balse wax ka dambeeyey wax badan maan akhrin. markaa taas waxay ka micno tahay keliya waxaan wax u akhrisan jiray si aan imtixaanka natiijo wanaagsan u keeno, balse walaal noloshu sidaas ma aha. maanta markaad jaamacadda dhammayso kama dhigna aqoonta intaas kaaga eg tahay, balse waa marxalad ka mid ah marxaladaha ugu wanaagsan ee waxbarashada laga gaaro. balse aqoontu markaas ayay bilow u tahay. noloshii caadiga ahayd ee suuqa ahaa markaas ayay bilow u tahay. taasna ka bixi mayso ilaa maanaad noqoto everyday learner, maalin walba qof wax barta. haddii aanad ahayn ka dhammaan maysid noloshan kale. waxaa saddexaad aan runtii samayno markaan dhalinyarta nahay, hore ayaynu isku dhibnaa. oo waqtiga dhalinyarnimadu waa waqti energy iyo tamar badan inagu jirto, taasoo keenta wax kastoo in bilowno haddii ay adkaato, waddada ugu fudud aynu qaadi karnaa inay tahay inaynu shaqadan joojino oo ay mid kala bilowno. run ahaantii sidaasna wax badan kuma socdaan. marka aad horeynba aad wax bilaabayso waa inaad si weyn u daraasayso waxaan aad bilaabayso. haddii aad ganacsi furayso waa inaad ka fikirto ganacsigan iyo qorshayaashiisa iyo wax kastoo kaasoo horbixi kara sida aad u maareyn lahayd, in qorshe cad aad waxaan ku wado. haddii aad bilaabayso koorso aad doonayso inaad xirfadle aad ugu wanaagsan aad noqoto, marka koowaad inaad daraasiin aad kusii samayso oo aad sii ogaato xog badan oo ku saabsan, balse aanad marka hore ku degdegin inaad waxaan bilowdo. marka aad daraasiin wacan aad ku samayso, research aad kusoo samayso shaqada ama ganacsiga aad bilaabayso, kadib marka aad bilowdo waa inaad isku daydo inaadan marnaba aanad ka foqin. keliya joogtee isdhiibidna mar walba ka fogow. noqonin waddada ugu fudud aad qaadi kartaa inaad hawshan joojiso, mid kalena aad bilowdo. keliya hawshan aad u dhaqaaqday waa inaad miro dhal dhab ah aad ka keento.
laakiinse haddii aad marba tan intaad bilowdo aad joojiso tan kale aad bilowdo aad joojiso tan kale aad bilowdo aad joojiso run ahaantii taas waxay kugu keeni kartaa in waqti badan kaa lumo. inta badan markaynu dhalinyarada nahay waa waqti aynu jecel nahay inaynu dad badan ama dadkoo dhan aynu raali gelin, balse waxay rabbi subxaana watacaala inoo khalqay ma ahan waxaynu awoodno toonana ma ahan. ma awoodin inaad qof kasta oo kaasoo horbaxa aad raali geliso. marka aad shaqooyinka qaar aad bilowdo waxaa suuragal ah asxaab badan inay kugu dhaleeceeyaan ama ay kugu caayaan shaqadan aad bilowday. haddii aad tiraahdo wax samee ama dadka ku cusub waxa laga yaabaa inay nin waalan ama qof waalan ay kugu tilmaamaan, waayo waxay hore u arki jireen ma ahan. haddii aad tiraahdo qof kasta raali geli, taasi waxay kugu keenaysaa in shaqooyinkii iyo hawlihii aad wadi jirto dhan inta aad joojiso kadibna qofkaa ku dhaleeceynaya inaad la mid noqoto. ma awoodid qof kasta inaad raali geliso, balse laakiin wax wanaagsan oo rabbi subxaana watacaala raali ka yahay samee, ku qanacsanow hawshan aad wado. xilliga dhalinyarnimadu waa waqti wax badan ay bilow inoo yihiin. haddaynu ganacsi bilowno waa waqti ay bilow inoo tahay, haddaynu shaqo bilownona waa waqti ay bilow inoo tahay, haddii ay tahay in aynu suuqa yani hawlo ka sameynayna waa waqti ay bilow inoo tahay. wax yani badiban hawlaha adduun bilow ayay noo wada yihiin. taasna waxay keentaa marka aynu aragno markaan ganacsi yar furano inaynu aragno ganacsade weyn oo run ahaantii isagu magaalo dhan ay u caddahay, taasoo markaa keeni karta mararka qaarkood in qofka dhalinyarta ahi ku qanci waayo wixii yaraa uu haystay. taasna ay keento in uu ka cararo ama uu dhaho ninkaasoo kale ayaa noqon, kadibna waddo khaldan aad qaato. laakiinse waa inaad ogaato in Roma aan hal maalin lagu lisay. ganacsadaha weyn aad maanta arkayso wuxuu ka soo bilaabay meeshan aad joogto meel ka hooseysa. waa inaad ku qanacsanaato hawshaadan keliya, laakiin aad leedahay vision dheer aad ku gaarayso, inaad leedahay hal abuurkii aad ku soconaysay, inaad leedahay aragti aad u fog, inaad leedahay rajo weyn oo runtii aad doonayso inaad meeshaas ku gaadho. laakiinse qanacsanaantu waa wax weyn oo run ahaantii dad badan ay isku dhaafeen. taasna xilliga dhalinyarnimo waatay nagu keenta inaan ku qanacsanaan weyno waddankeena, inaan ku qanacsanaan weyno qofnimadeena, inaan ku qanacsanaan weyno waxyaabo badan oo runtii haysano oo in kadibna door bidno meelo kale oo aan muhiim ahayn. laakiinse waynu ku qanacsanaano waxaan haysano, balse waxaas aynu ka dhigno wax aad u weyn. run ahaantii qiimo weyn ayuu yeelanaya. wax kastoo qiimo loo sameeyo ayaa qiimo yeesha. haddii waddankeena qiimo u sameyno qiimo ayuu inoola yeelanayaa, balse haddiinu qiimo ridno ilaa qiimo ayuu noo noqonayaa. marka aynu ku qanacsanaano wax kasta aan haysano. saaxiibayaal, barnaamijkeena maanta intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa. intaynu ku kulmi doono barnaamij la mid ah waxaan idin leeyahay